لكن ماشي دجال بكرة والس فرساري أو شرب دجال كدعي ما ملك شبله وحلي هاي وحكدم بيا دجال كي قصة واحد ولا دولة هذه شروا بين النساء سيدي بيقولها تين نسكوز ولا كارو والله الدولة هرتا وحب بينين باوجرب خبال ولا وذا أكسوني هاي دولة الصومالية أيضا لقى فدين واي وزير ذي نصادرتي برلمان كذا نصادرتي وزير كاشان لقوا وحي في 3 ويك أو أنتو هوتيل فريستي odayaashii qabiiladii oo dhan u wada yeeray iskugu yeeray kulli ciidamadii dadkii ciidamadooda ugu jireen Cambodia dhan ka soo bixiya dhahay lacag meesha ku farraqay dagaalka ciidankiisa galay way ku dhaawacmeen adduunka dhan waa laga daawanayay dhaawiciisu soo qaatay dawladda Soomaaliya qayb bay ka dagaalkaas dadaal badanna way ugu jirtay marka inay dagaalka ridaysana way sii sheegtay waxay mar walba dhigaysay Soomaaliya kismaayo dagaal baa ka dhici doona qabiilada isku laayna doona waxaan hala joojiyo inay abaabulayso ogeyd annagana waa ogsoonay maanta dadka jooga kulli wada siyaasiyiin كلنا عقل بيقبان dadka wada wixii hore ma jira hadda waxa aad balaanka aad sameynayso dhan dadka wada garanayaan marka anaga waan garanaynaa dawladda nagu soo wado waxan waanan ogeyn gudaheennana waan ka ogeyn laakiin aad iyo aad bay deganaansho badan u muujiyeen dadkaas halka joogo si ay dawladooda iyaga iskugu dhicin waana ku soo dhaweeyeen meesha dhibaato fara badan naga qabsatay dawladii Soomaaliya oo aan la celini karno dawladii ah wadanka oo maxaa u talinaa leh haddana dadkii infection ka dhax abuurayso qabiiladii lacag ku daadinayso dagaal isku dhibayso qoriyo keenayso doomankii hubka la soo saari dadkii oo askartii xamar laga soo qaado diyaarad la soo saari oo hub wadanin guriyaha hubka ku wada jiraan markii askartii la keeno guriyaha horka galayaan qoriyaha qaadanayaan dhibaatooyin fara badan naga la soo kulantay dawladda Soomaaliya waxaan kula talin lahayn dadka waa dadkeedii waa shacabkeedii ودتك ومدحوينها ودارتو كتابك ومري إلهنا سبحانه وتعالى القرآن كيس حكوا دعين هماس مشائم بنميم دتكن وسعد دتكن وسكدره جنة حتى ما أوريو ما قالوا أصلا مدحوينها هي دتك الله شقيا مسلمين واي مسلمين ترى حافي عن إن ربي وذاك عب صدان واحد إنه يسمينا مدحوينها أصلا وأجي هاي والسير ذي سنة وأجيهن أنا جنا وأجنا إلهي إنه وأجي هاي dadka dhintay ee dhaawacmana mas'uuliyadooda iyagu ilaahay maalinta yawm al-qiyaama ayagu weydiin doona ilaahay yawma yaqumu nasu li rabbil alamin Xasan Sheekh Maxamuud ba ilaahay weydiin doona qabiilna ma la galay qabriga asaga kaligiis uu gali doona waxa markuu meediyaha fariisto la wareysanayo uu dadku u sheegaya macaanka badan ee uu leeyahay anaga waxaan nahay dawlad nabadeed oo intaasna wax horinayo siyaasad iyo aakhira meel mooda gasho siyaasadda waa been socoto ilaahayna kama cabsan dadka islaamka ee walaalaha ah ee 23 sano dagaalka ku soo jiray ee ilmahoodii ay ilmihii lagu dhalay qaxootiga ilmo kale sii dhaleen ee aan caafimaad haysan waxbarasho haysan wixii adduunka bini'aadam uu ku noolaanay haysan mars oo kulaalkeeda ilaahay subxaanahu wa ta'aala ilmo yar oo 6 jir ah waan ooyay wallahi baan aragnay qabla aan socdo oo mar walba lagu kor u qaadayo tabar uma hayo lugtana ka gubana waan ooyay waxa soo badan mariiqan bay ilmihii Soomaalidu wadiyeen education male dhibaato dawladda kargaraysa male meel lagu xareeyna ilmihii agoonta male aabayaashood waa la dilay hooyooyinkood waa la dilay walaaladood waa la kufsadaa qaxootiga lagu kufsadaa ilaa ay hadda waxa la rabaa dadka in la barakaxiyo dawladda Soomaaliya ee xamar joogta ee dadka qabiilada Soomaaliya halkaas ku nool waxay hurinayaan colaad oo gobolka Jubbada Hoose iyo Jubbaland hurinayaan waxay dadku u sheegayaan ama meediyaha adduunka ka sheegayaan waa ceeb wax afka la soo marin kara ma aha wax dad insaan ku hadli kara ma waan idin qixinayna sidii koowiya sagaashan koowiya kale waxaan idin geynaynaa xuduudda war ilaahay un baa dadka dhameeya ilaahay baa dadka dhameeya laakiin dawladda Soomaaliya ayada ayaa dagaalkan koow ka ah ayada hurisay ayada ayaa qayb ka ah ayada dhibkan keentay maanta ayadaanan u haysanaa maxkamadaha adduunkan waa la fuuli doonaa dawladda oo jeedisay waa korkaas ka saartay laakiin waxaan ku weydiinayaa dawladda waxay leedahay gacmo shisheeye meesha ku jira gaar ahaan dagaalka ugu dambeeyay dawladda Kenya ayaa raad ku leh oo ka dambaysta maamul goboleedka Jubbaland asaaskiisa si ay u hesho dhul bafara ama xad ah oo kaga gudban weerarada al-shabaab dhanka kale meel la oran kanayna xagga qabiilka marka laga eegayo Puntland way taageertay Jubbaland arinta maxaad ka oranaysaa wallahi Puntland way taageertay Jubbaland waxa weeyaan dawladii soo sameysay dastuurka Soomaaliya ee sameysay garowan iyo garowtu ahayd waxa lagu soo saleeyay dawladana federaal bay ahayd marka federaal haday idana waa dawlad federaal oo ka horeysay dawladan Soomaaliya dhalatay hadda ka horeysay ahayd
waxay puntland u taageeraysaa dowlad walba oo soomaaliyeed oo ka dhalato oo federaal ahoo iskeed isu joojiso way taageeraysaa maaha jubbaland keli inay taageertay because idaa federaal ah dowladda soomaaliya federaal ah annagana federaal ayaa nahay meeshaan sharcigii lagu yimid ee xasan sheekh maxamed uu ku yimid ayuu diidan yahay asaga taas waa dhibaatadiisa meesha ka imaanayso puntlandna qabiil ahaan uma ayan taageerin soomaalinimo iyo sharciga ay taqaanay iyada dejiso kamid ah dadkii soo dejiyay iyo wuxuu madaxweynaha ku yimid bayno taageeraysaa xaqna u leenahay taageero dowladda gobolada dhexe way taageeraysaa baay iyo bakool waa la taageeraya meel kasta waa taageeraya annagoo dhan waa taageerana qolo walba oo soomaaliya oo xaq u leh oo shuruudda buuxinaysa inay federaal samaysato waanu taageeraynaa adduunkana waxaanu sheegaynaa dowladda soomaaliya ee ay hubka ku daldalayso ee ay muxuu ahaa dowladda maraykanka hubka ay soomaaliya maanta intay ku fududaatay ay siisay ee isla markiiba inta madaxtooyada laga qaaday al-shabaab gacanta u galay gobolada soomaaliya lagu weerarayo lagu xasuuqayo inay dowladda adduunka ee waaweyn ee dadka caawiya inay joojiso dowladda kenya markaan kaaga warramo dowladan darisnahay waaye xoolaheena ugu badnaa yaalla daaraheena ugu dhadheeraa ka dhisan ganacsigeena yaalla qaxootigeena 6 milyan ahaa taagan oo meesha oo yaallo waxaas oo dhan ay noo haysay haddana dowladda kenya waxay ka mid tahay dowladaha amazon ee jooga soomaaliya ka mid tahay ethiopia joogto burundi joogto uganda joogo Sierra Leone ba hadda yimid oo joogo inay tahay dagaalka ayna nina ula soconin ayna dagaalka qayb gelina ayagana way og yihiin been abuurasho way waxaas waxay u dan leeyihiin anaga ma naqaano dowladda Kenya dhul anaga nooga ma baahno dhulkeenana qofna ma qaadanayo xamar ma dhulka xamar Burundi iyo Ethiopia iyo Uganda xamar ay qaadanayaan miya dowladda Soomaaliya way ogol yihiin inay ka qaadato maadaama ay la joogto ayaga waxay u saxiixeen inay xamar siiyaan miya واساسو كلاتو قفنا مسينا يا دولكن قفنا مقادنا دونك شرعي با كجرا دولة الصومال دولك إلى ولا يقنا حدودا لنا أنك جاهلين من ذاتك الدقمة أو إبرك وحاصل مسك حدا الله وشوا أنا من لنا وفري وحنا قرينا متعلمين وانا سكولنا وان سو آخر سنة دونك وان جوجنا وفترة على يوحول بقوية دولة الصومالية وحي أملاينا سفترة رجع عبسنا يسألني ما قرن كريم محي أقبل سفترة ما هو حير بتاع ذاتك إني ما ضحك تاجناتو ولا دي تاستيب وما نقرأ دولته مالها فدرال بنك بقينا دولته حلال فدرال بنك كل سنة لكن هبكا وحلاقة أساسك اسمايو أيانو كسور جيلنا أنا قعدت هنا لوجريو أنا جوادن كمعمولينا فدرال كي constitution كنا أنا قاعد بقينا هذا محا أديك اللي جودي بيا أديك وحاول وحل جودي هذا الدولة دي الصومالية تاعي مدحويني الصومالية تاعي لكن ضدك الربيتان كوض أي سمي صنايا أنا جوحنا الشعب مدح بنان وحر أهان هاي ninkaan rabna anaa keensanayna dowlad xamarna looga soo dhisay marna mana loo keenayo ma ogolaanayno anaga shacabkan ayagaa dadkooda soo qabanaya ninkaana waxaa loo doortay oo meesha loo keenay waxaa weeyaan inuu u qalmo ayay ogyihiin dadka because dad badanaa tartan soo galay oo meesha kusoo wada tartamayay dadkii oo dhan markay fiiriyeen dadkii meesha joogay waxay axmed maxamed islaan axmed madoobe u doorteen waxaa lala soo diriray dadkii xooga badnaa al-shabaab ee taqaanay boodkii kismaayo goobweyn bay taagan yihiin buurgudud ay taagan yihiin meel fog ma joogaan ninkaas unbaa kaan naga dadka markay fiiriyeen abniga maanta cadowgii daraad gacantooda laga bixiyay ee noloshooda kusoo noqotay ninka maanta u hayni karaa ama ka bixini karaa inuu yahay ninkan oo ciidanka ah ciidanka xooga badanna haysto ayaa horta lagu doortay ma aha in lagu doortay qabiil Soomaaliya oo dhan la doortay 485 baa dooratay 500 layna ergada ay ahayd ma garanno goobjoog baanan u ahayn adiga ma waxaad ilaahay baan kugu dhaaray waxa aragtay meeshan waxa la sharci nidaam loo 4 sano madaxweynaha ku horeysay Jubbaland madaxweyne Sheekh Shariif arintiisa bilaabatay arin 4 years soo socotay ciidan baa loo sameeyay oo ciidanka Jubbaland la dhaho raas Kambooni dhinac bay joogtay waxa soo dhan dad oo Soomaaliyeed oo isku tago gobolka deganay ah saddexda gobol deganay ahaayeen haddana process baa la galay muxuu ahaa waxa bilaabatay muxuu ahaa sidii delegationkii lagu keeni lahaa dastuur baa la ansixiyay dadkii baa doortay madaxweynaha loo gudbay madaxweyne ku xigeenka loo gudbay ma nin iska socdo meeshan soo sharci ma jiro madaxweynaha la sheegtaa lagu leeyahay diyaaradda dil soo saaray oo lacag liisiyo leedahay samee si aad adduunka u tusiso waa la sameyn karaa laakiin inay waxaan isku miisaan ahayn isku culays ahayn sharci ayna nimankan ku soconin ay yihiin niman qaswadayaal annagana waa arkayna dawladda arka adduunkana waa arkaya away dastuurkii nimanka lagu soo doortay away ergooyinkoodii away dadkii ay qabiilada Soomaaliya isku keeneen away waxaan wax process soo socdo ahay intaasoo milyan ilaa hadda jaamacadda ay joogan dadkii because dadka waxa laga keenay gobollo fog in la celiyo oo dadkii muxuu ahaa diyaarado lagu qaado wadadii ma sii mari karaan ba al-shabaab baa joogta diyaarado lagu qaado gobolladoodii lagu celiyo waay
waa in dadkii la anbabixiyo goormaaba dadkii la anbabixini oo dhulkii wax loo qaban oo la sameyn dawladda marna daaqadan ka soo geliyo soo weeraray daaqadii laga hortaga waa la celini haddana albaabkana ad markaa gurigayga hadda lagu soo weeraro oo marna gadaal laga soo galo oo halkaa qori u qaato iska celiyo aan fariisto koob shaah iyo soo shuba koobkan afka saar albaabka laga soo galo oo haddana weerar la dana kii aan ku joogsado goormaan hoostayda iyo ilmahayga wuxuu qabanaya ma la oran karaa dad baa jira mucaarada oo reer Jubbaland ah oo marka labada kaam laga tago eedeynta la soo jeedinayo dadkaas maxay ku qanci karaan bay kula tahay dadka horta adduunka ma balagam dawladda Mareykanka waxay leeyihiin mucaarad adduunka mucaarad iyo muxaafid la dhahaa way leeyihiin laakiin yaa badan waxa waay mucaarad uu jiri karaa shakhsiyaal dhowr qaata ah oo dadkiisa dhulkiisa u jeedin oo intii lacag la siiyo mabdiiisa dhan ku bedelayo inuu dadka u sameeyo ama warwarayaal aha hortaraba oo dadka soo dili jiray oo u fududahay dadka sidii digaaga oo kale inuu dilo ayaa jira dawladda adeegsanaysa mucaarad maanta hadii Jubbaland la tago oo food la qaado mucaarad taagan oo aniga ma arkin qof walba wuxuu ku qanacsanaa inuu dawlad dhisto laakiin waxan waa wax la soo abuuray hadaa waa infection aan ku dheela abuuray dawladda Soomaaliya abuurtay wasiiradeedii abuureen wasiirkii gaashaandhiga ayaa dhibaatadan ka dambeeyay asaga ayaa dagaalka hogaaminaya asaga dadka xaq darrada wiilasha ku laayay asaga sameeyay arrintan dambe oo dhacdana tii un bay daba socotay because dagaalkii horeeto markii dhibaatadii dhacday haddana odayaashii airportka lagu kulmay professor Gandhi baa la wada kulmay odayaashii qabaa'ilada Soomaalida ee gobolka Jubbada Hoose iyo Jubbaland degaayo oo dhan markuu wada arkay oo qolo iyo suldaan uu arkay kulli waxay sheegeen dawladda fidmada ka timid inay dadkan ku dhamaadeen marka waxaad leedahay dagaalka meesha ka dhacay qabaa'ilku ismahayo ee dawladda ayaa dadkan dabada ka soo riixaysa dadkan adarkaysa dawladda Soomaaliya ayaa dabada ka riixaysa dadka ay dawladda ayaa namaamaha isku dirtay waxan oo u kala dabqaaday ayada infectionka ka abuurtay aniga goob joogan ahaa leegama sheekeynayo marka adduunka waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya in dib loogu noqdo in arrimaheeda la fiiriyo in hubkan lagu daldalayo horta batatan ba ay joojiyaan annaga maanta hub uma baahnin Soomaaliya hub uu ka buuxaa hub uma baahnin waxa u baahanahay in dadka cunno loo geeyo daawo loo geeyo iskuulaadka loo dhiso isbitaalada loo dhiso waxbarasho la siiyo in gabdhihii iyo masaakiinta qaxootiyada lagu kufsanayo qoryo markay doontaan kulligooda dhan cirdigooda shaltooda lagu dhacayo dhulkooda dib loogu soo celiyo taasaan u baahanahay mooyaane meeshii annaga daawona laga siin lahaa dhakhtarna laga siin lahaa waxbarashona laga siin lahaa oo dadkeena aan dib u dhisan lahayn in qoryo nala siiyo oo la dhaho isku